jaaliyadda Mareykanka ee degmada Gabiley oo wakiil ka yahay Abubakar Saaq Al-Khataab Foundation oo joogo Maxamed Cagaweyne dhammaan saxaafadda ardayda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan farxad gooniye ii tahay aniga inaan maanta qayb ka ahaado xarika jarka xarunta agoomaha ee degmada Gabiley iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalintii ugu horeysay xafiiska shaqada ka bilaabay dawladda hoose Gabiley xarunta agoomuhu waxay ka mid tahay xarumaha ugu muhiimsan ee ay ahmiyadda in la saaro tahay dhismayaasha iyo daryeelkooda ka dawladda hoose ahaana waxaanu qayb weyn ka nahay daryeelka joogtada ah ee xarunta agoomaha waxaan ballan qaadanaa bilaha soo socda inaynu dhisi doono dhismayaal kale oo xarunta laga dhisi doono inaanu sii wadi doono kordhin doonana taakulada iyo daryeelka aanu u qabano xarunta agoomaha ee degmada Gabiley xarunta agoomaha dhalinyarta iyo ciyaalka ku nool waxa ay mudan yihiin in ay helaan in lamida inta ay helaan daadooda ama cid kale la daad ah ee degmada ku nool anaguna ahmiyad gooniyan saari doonaa waa sadaqa waxa la siiyaa khayr baan ku jira waxaan ballan qaaday xogay ahaan inaan garab istaagi doono ugu dambeyn waxa farxad ah inaan maanta qayb ka ahaado xarika jarka xarunta agoomaha ee dhismaha loo dhisay oo anaguna dhismo kale bilaha soo socda insha Allah aanu dhisi doono cidii kale ee wax ka qayb qaadanaysa waxaan leeyahay meel wax lagu darsado meesha ugu haboon weeyaan xarunta agoomuhu iyo wax laga qayb qaato wad mahadsantiin dhamaantiin inta soo qayb galo xarika jarkan gurigan quruxda badan leh ee loo dhisay agoomaha Gabiley runtii waxaan u mahadnaqayaa dadkii ka soo qayb qaatay dhammaan jaaliyadda reer Mareykan ee aan halkan wakiilka uga ahay runtii soo ururiyay wixii karaankooga ah inay ku darsadaan guriga quruxda badan leh waxa kale oo u mahadnaqayaa Al-Khataab iyo qolooyinka dhismaha ee dhisay dhismahan iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay mashruucan khayriga ah ee runtii lagu caawinayo agoonta Gabiley waqtigiina hawshiina soo gaadhay waxay ahayd waqti jaaliyadda Gabiley halkan yimid oo ay ogaadeen baahida jirta iyo guriyihii agoonta ku jirtay oo waqtiga burbursanaa dabadeed markay baahidaasna soo gaadhay waxa dhacay in dadkii ka soo jeeday gobolkan Gabiley ee Mareykan joogay ay isku dayeen in wax ururiyaan ay bilaabaan kharashkii gurigan lagu bilaabi lahaa intii kalena Al-Khataab iyo dadka kale ee wanaagsan ay hawsha dhameystireen marka halkan waxaan mahadnaq uga soo jeedinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay walina hawshu way socotaa cid kasta oo rabta arrinka khayriga inay wax ku darsatana waan soo dhaweynaynaa kullay waqtigaas ka kulul halka oo bixiya agoomiye waa fadhiya maanta waxaan isku nimid xaruntan oo ah hool weyn iyo suuliyadiisii oo shub oo dhameystiran oo ka duwan dhismihii hore ee xaruntan ka dhisnaa in aanu maanta xarig ka jarno oo ay iska kaashadeen walaahiga qurba joogta Mareykanka ee gobolka Gabiley iyo Al-Khataab oo ay wada shaqayn leeyihiin hay'adaha Sad Foundation iyo Hawa Foundation oo inta baan wakiil ka ahay u joogo runtiina labada hay'adood la'aantood Hawa Foundation iyo Sad la'aanteed ayna u hilgarsheen inay hawshan soo fuliso Al-Khataab runtiina wakiil u ah geeyigeenan Somaliland run ahaantii waxaan maanta farxad ah inaynu xaruntan tusaale ay u noqon doonto oo kale xogayna waa fadhiya dawladda hoose ee hay'adaha Kenya ay u noqoto tusaale xaruntan oo kale in laga sameeyo meeshan sababtoo ah hadii maanta kii oo kale lagu celiyo waa bari u yeelo igu noqo marka xogaya wax ka codsan lahayn bal wixii dambe xogaya anaguna waan ku maqannahay oo fankii aan ururinay maana joojin insha Allah sanadkan 2026 kana waxaan ku rajaynayaa inaan qayb kale ku dari doono oo bilaabi doono laakiin waxaan aad u jecelahay wixii dambe ee hay'adaha dhisayaan in uu noqdo standardkan sababtoo ah lacagtan anaga iyo Mareykanka ugu tala galay standardkan hadii la qaybin lahaa waxa laga yaabaa 3 hool oo jingadaas inay dhislaan jaajuura laakiin waxay noqonaysaa 5 sano 6 sano kadib inay halkii ku noqoto marka shaygan adag dhismihiisu standard yahay markasta waa wax inoo hadhaya waxaan marka hore inta ku boorinayaa cid kasta oo ka qayb qaadanaysa
marka labaad waxaan leeyahay cid kasta oo ka gacan geysatay aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan maanta ilaahay inoo suurtageliyay fadligiisa inaynu maanta u joogno inagoo shalay toolownahayd muddo dhoweyd markii aynu xaruntan dhagax dhigga samaynaynay inaynu maantana ilaahay nagu sameyn inagoo xadhigga ka jarana xaruntii oo dhammaystiran oo dhammaatay oo ka jawaabtay baahidii carruurta ee aynu hor fadhida agoomaha halkii ay seexanayeen waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa ilaaha nabadgelyada inoogu dhameeyey dhismahan waxaa loogu talagalay inuu qaado 40 carruur inay seexdaan ayaa loogu talagalay oo hool 40 carruura iyo staircase-kii hadhow looga baxayay waxaan loogu talagalay 3 dabaq oo kale inuu qaado iyo suuliyadoodii oo dhammaystiran oo isugu jira noocyada kala duwan ee dadku isticmaali karayaan dhismahan wuxuu ka jawaabaya inuu muddo dheer jiro inagoo ka bedelay dhismayaashii hore xarunta meesha ku yaalay oo ahaa dhismayaal aan awoodi karayn deegaankan halka ku yaala awgeed dhismaha loo dhisay inay xamilaan muddada uu jirayo dhismahan waxaa laga bedelay inuu muddo dheer jiro oo dadkan ay isticmaalaan ayaa loogu talagalay waxaa ilaahay mahadiya annagaa shirkaddii xaaji muuse dhismahaasi inaan wixii aqoon iyo taal ilaahayna geliyaan waxba kala hadhin wixii aan ku darsan karayna xagga ilaahan sii dhigan inaan ku darsannay waxaan halkan uga mahadnaqayaa jahliyadda maraykan ee reer gabiley oo ahayd ciddii baahidan suurtagalnimadeeda u horraysay suurtagelisay markii iyagu wixii ay xooggooda ka shaqaysteen soo diyaariyeen ee ay soo bandhigeen ayaa waxaa dhacday in alkhadaab ku darta baahida intii kale ka dhinayd dowladda hoose ee gabileyna ay fuliso hawsheeda dhinaceeda qabsato aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waxaan ilaahay uga baryaa miisaanka xasanaadka ay ka soo rayn wax ka khayr qaban ugu bedelo xogeyaha dowladda hoose alkhadaab foundation oo ka jooga maxamed iyo abakar oo isaguna ka socda jaaliyadda maraykanka reer gabiley waxaan salaamayaa oo kale martida kale ee naga soo qayb gashay xafladda saxaafadda iyo ardayda dhammaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaantaa kadib maanta waxaynu joognaa oon xarga laga jarayaa dhismihii laga fuliyey xarunta daryeelka carruurta ee gabiley oo sidaan sheegay ay iska kaashadeen jaaliyadda maraykanka ee reer gabiley oo ahaa kuwii ugu horreeyey bilaabay iyo alkhadaab foundation iyaduna qaybteedii kala qaadatay si wada jira ay u dhiseen dowladda hoose iyaduna ka qayb qaadatay dhismahaasa maanta xarga laga jaraya waxa farxad weyn oo ah maanta annagoo baahi weyn u qabnay muddo badanna waxa weeyaan qayladhaan diraynay inay qolooyinkan magacaabay ka soo jawaabeen oo ay fuliyeen dhismaha quruxda badan leh maanta ay carruurtu noo geli doonto haddii la yidhaahdo waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin jazaakumullahu khayr aljazaa ilaahay waxaan idinka baryayaa halkii aad ka soo saarteen inuu cawil khayr qaba idiin geliyo waxaa kaloo rajaynayaa in insha allah halkii aad ka sii wadi doontaan waxaa kaloo mahadnaqayaa kayse xaaji muuse madaxa xaaji muuse construction company oo ahaa dhismihii shirkadda dhismaha fulisay dhismahan oo runtii noo fuliyey dhismo qurux badan oo adag oo waxa weeyaan mustaqbalka ilaa 50 sano soo socda iyo in ka badanba garanti ah isagana aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa in badanna waxa weeyaan oo xoogiisa iyo xoolihiisaana isaga laftiisa ku darsaday